madaxweynaha dalka Tugriga Rajab Tayyip Erdogan ayaa shaaciyay boqortooyada Sacuudi Carabiya ay ka codsatay in dalkiisu uu ka iibiyo diyaaradaha dagaalka ee aan duuliyaha lahayn ee droniska. Erdogan ayaa warkan ka sheegay xilli uu ka falcelinayo dowlatus military oo ka dhacay caasimadda Athens kaas oo ay ka qayb galayaan ciidamada Greega, Faransiiska, Masar, Sacuudiga, Imaaraadka Carabta iyo Bahrain. Waa arrin la yaab leh in Sacuudigu uu ka qayb galo dowlatuskaasi ciidan ee Greega. Dhanka kale waxa ay naga codsadeen inaan ka iibno doroniskeena waxaan rajaynaynaa in aan arrintaasi si degan aan ku xalino ayuu yidhi madaxweyne Erdogan. Tugriga ayaa u arka dowlatuskaasi ciidan ee ay dalalkaasi ka sameeyeen Greega mid looga soo horjeedo xukuumadda Ankara oo uu khilaaf kala dhexeeyo dhigooda Athens. Cali Qamaceer, Cable TV. hadda waan jimicsadaa caafimaadka charger maaysa حاجو تيار السكول كي ما بقيسي هاي شارجر مايسا شارجر مايسا شارجر عزومة دي بنشوف عزومة دي سوق الو شارجر مايسان ونيوم maxaa ka qaldan maanta oo dhan telefoon baad ku hadlaysaa chargerna waad na weydiinaysaa aniga hayla yaabina waxaan isticmaalaa adeega Muraad ee shirkadda Somtel oo bishii oo dhan aan ku hadlo $3 oo kaliya waxaad isticmaali kartaa adeega Muraad ee Somtel oo aad ku heli karto bisha oo dhan $3 oo kaliya hadal oo hadaalin